jariiradaha caalamka maxay ka qoreen maanta ciyaaraha iyo suuqyada kala duwan ee macalinka PSG Mauricio Pochettino ayaa laga yaabaa inuu badbaadiyo xidigii hore ee Liverpool Philippe Coutinho hadii loo magacaabo tababaraha Manchester United sida la sheegay. Man United ayaa laga yaabaa inay u dhaqaaqdo saxiixa Frank de Jong si ay bisha Janaayo ula saxiixato oo u noqdo bedelka Paul Pogba. Sida wararku ay sheegayaan wararkii ugu dambeeyay ee ka imaanaya Spain ayaa sheegaya in kooxda ay rabto lacag cash ah ayna ku qasbanaa doonto inay ku fasaxdo ciyaaryahanka qadka dhexe lacag gaaraysa 75 milyan oo geni. Halyeegii hore ee kooxda Manchester United ee Rio Ferdinand ayaa shaaca ka qaaday sida ugu xun yahay in kooxdiisii hore aysan isku dayin dadaal badan si ay u xaqiijiso saxiixa Antonio Conte. Bishii hore Red Devils ayaa maalmihii la soo dhaafay lala xiriirinayay dhowr tababare oo tayo sare leh kadib markii uu ka tagay macalinka Ole Gunnar Solskjaer oo dhawaan markii Watford 4-1 ay ku qabatay dhammaan taageerayaasha Man U ay kaceen iyo sidoo kale milkiilayaasha tiimka. Waxaa sidoo kale Man U soo gaaray dhabarjab aad u adag oo ay ugu horreeyday Man City iyo sidoo kale Liverpool oo Watford ay ugu dartay. Waxay noqotay dharbaaxyo kulul oo macalinkani lagu buri karay.